kulan wacan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha dalka siyaasiyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed madaxweynaha Cabdicasiis Laftagareen ayaa kulan aan caadi ahayn waxa saacadii la soo dhaafay ku dhaxmaray madaxtooyada Soomaaliya kaasoo saxaafadu ay daba joog ka ahayd haddaba waxyaabaha kulankaasi diiradda lagu saaray iyo sidoo kale hadaladii la dhaafsaday ee saxaafada loo soo tusiyay ayaa markaas sida la wadaagi doonaa daawadayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Somaliland oo si meeqaam sare lagu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa ee xarunta Itoobiya iyo sidoo kale qorshaha socdaalkiisa ayaan markaas sida la wadaagi doonaa daawadayaal inta guda galeen marka koowaad soo dhaw muuqaalkan like saar sina share gare si dad badan uu gaaro ana ku bilowna madaxtooyada Soomaaliya waxa saacadii la soo dhaafay ka socday kulamaan caadi ahayn oo u dhaxeeyay madaxda qaranka iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo kamid yahay Cabdicasiis Laftagareen kulankan oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay Koonfur Galbeed oo kamid yahay Shariif Sakiin ayaa goobta markaasi ku sugnaa waxyaabaha kulankan lagu lafaguray waxa markaasi qayb ka ahayd doorashada Koonfur Galbeed oo markaasi waqtigeedii haatan la joogo waxaana madaxweynaha uu markaasi soo jeediyay talo ah in markaasi la guda galo doorashada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sidoo kale dawladda Soomaaliya ay markaasi door muuqda ay ku lahaato doorashadaas oo iyadu markaasi ay maamusho Xasan Sheekh Maxamuud oo Kismaayo ku soo hongoobay ayaa markan u soo jeestay qabashada doorashooyin markaasi ka dhacda dowlad goboleedyada Hirshabelle Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed waxaana uu qorshihiisu yahay in markaasi dowlad goboleedyadan doorashadooda ay dowladda federaal ka maamusho inta aysan markaasi ku dhaqaaqin go'aan degdeg ah oo la mid ah kii uu qaatay Axmed Madoobe Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu si cad u soo jeediyay in markaasi la guda galo doorashada markaasi ee Koonfur Galbeed isla markaana dowladdu ay iyada mas'uul ka noqoto balse saan xogta ku heerno madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa arrintaasi ka biyadiiday waxa uu sheegay in arrintaasi aysan marnaba suurtagal noqon doonin taabadalkeedna dowladda Soomaaliya ay markaasi arrintaasi aysan u oolin Koonfur Galbeedna iyada ay markaasi u tashanayso doorashadeeda oo iyadu markaasi ay qabsanayso waxna Cabdicasiis Laftagareen markaasi la filayaa in uu qaato qorshihi Axmed Madoobe oo ahaa in markaasi doorashada Koonfur Galbeed ay qabsato isla markaana dowladda uusan dhag jalaq u siin taabadalkeedna albaabada uu ka xidho sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud waxyaabaha Cabdicasiis Laftagareen u soo jeediyay waxa kamid ahayd in uu cadaadiska ka joojiyo madaxda markaasi mucaaradka ku ah isaga ee doonaya in ay kula loolamaan xilka markaasi madaxweynaha Koonfur Galbeed ama ay tagaan deegaanadaasi Cabdicasiis Laftagareen ayaa arrintaasi sidoo kale ka biyadiiday waxa uu sheegay in ammaanka Koonfur Galbeed aan waqtigan markaasi khalkhal la gelin karin sidoo kalena loo baahan yahay in xasiloonida markaasi laga shaqeeyo waxaana markaasi muuqato in markan Cabdicasiis Laftagareen iyo Villa Soomaaliya ay fooda istari doonaan marka uu magaalada Baydhabo dib ugu laabtana waxa markaasi la filayaa in Cabdicasiis Laftagareen uu qaato go'aan degdeg ah oo ka dhana Villa Soomaaliya waxaana markaasi lagu wadaa in doorasho degdeg ah uu markaasi qabsado oo dadban isla markaana ay albaabada u laaban yihiin sidoo kalena uu dhagaha ka fureysto baaqida dowladda federaalka ee ku aadan in doorashada ay markaasi iyadu maamusho saan xogaha ku heerno Cabdicasiis Laftagareen oo markii horeba xiriirka iskala dhaxay Villa Soomaaliya uusan wanaagsaneyn haatan waxa uu isku diyaarinayaa doorasho dadban oo markaasi maamulkeeda uu isaga leeyahay sidoo kalena uu doonayo in uu markaasi dib ugu soo laabto sidoo kalena uusan waxba ka dhageysan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo markan u soo jeesatay in dowlad goboleedyada markaasi halka sano ee muddo kordhinta haatan u sii dhamaanayso loo qabto markaasi doorashooyin ay dowladda federaalka markaasi garwadeen ka tahay haddii dowladda ay dhacdo in markaasi Cabdicasiis Laftagareen uu markaasi dowladda federaalka dhagaha ka fureysto waxa dhici karta sidii Jubbaland oo kale in Xasan Sheekh uu markaasi diido doorashada isla markaana wax sharciyada aan la siinin ama markaasi aan la aqoonsan hagaag wali waxaad maqlaysaan warbixinteena fiidnimo haddii aynu aadno dhinaca markaasi Addis Ababa maanta waxaa soo dhaweyn markaasi heer sare halkaasi loogu sameeyay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro dowladda Itoobiya ayaa maanta soo dhaweyn maqaam sare leh u sameysay madaxweynaha Somaliland iyo wafdigiisa oo maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa waxa garoonka caalamiga ah ee markaasi magaalada Addis Ababa Bole International Airport ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Itoobiya soo dhaweynta madaxweynaha Somaliland ayaa ahayd mid uu markaasi maamuuskeeda uu sareeyo waxay qadar markaasi nasasho ku qaateen qolka VIP-da ee garoonka diyaaradaha Addis Ababa
kadibna waxaa loo gelbiyey goobta ay degi doonaan magaalada Addis Ababa ayaa lagu hiray qoraal ka soo baxay madaxtooyada Somaliland. Cabdiraxmaan Ciro ayaa martiqaad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, waxaana markaasi safarkiisa uu xambaarsan yahay ujeedooyin diblomaasiyadeed oo miisaan leh, kaasoo lagu xoojinayo xiriirka taariikhiga ah, iskaashiga istiraatiijiga ah iyo danaha muhiimka ah ee ka dhexeeya labadan dhinac. sidoo kale inta Ciro uu ku sugan yahay magaalada caasimadda ah Addis Ababa, waxa uu kulamo heer sare ah ula yeelan doonaa madaxda ugu sarreysa dalka Itoobiya. kulamadan ayaa diiradda lagu saari doonaa xoojinta iskaashiga labada dal, kor u qaadida ganacsiga iyo isu socodka labada dhinac, iyo sidoo kale ka wada shaqaynta nabadda iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Cabdiraxmaan Ciro waxaa safarkiisa ku wehelinaya wafdi ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda, madaxtooyada, maaliyadda, howlaha guud, maalgashiga, taliyaha ciidanka iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka ee Somaliland. safarkan waxa uu muujinayaa muuqaalka cusub ee diblomaasiyadeed ee Somaliland iyo sida ay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Ciro ugu dadaalayso inay kor u qaado sumcadda madaxbannaanida dhuleed iyo diblomaasiyadeed iyo kaalinta muhiimka ah ee Somaliland ku leedahay mandaqada Geeska Afrika iyo caalamka, ayaa mar kale lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Somaliland iyo Itoobiya ayaa horay markaasi u galay heshiis is-afgarad oo badda ah, kaasoo xiisad xoogan ka dhex abuuray Muqdisho iyo Addis Ababa, taasoo markii dambe ay madaxda labada dal ka gaareen isfaham si meesha looga saaro madowga xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya. si kastaba ma cadda in mar kale dib boorka looga jafayo is-afgaradkii buray, iyadoo markaasi xalay warbaahinta Itoobiya ay tabisay in madaxweyne Xasan Sheekh uu taageeray in Itoobiya ay gaadho markaasi badda cas. taageerada ay sheegtay wakaaladda wararka ee Itoobiya in madaxweynaha uu u muujiyay damaca soo gaarista badda ayaa waxaa markaasi ku lamaan madaxbannaanida iyo sidoo kale midnimada Soomaaliya. taas ayaa loo fasiray in Soomaaliya ay doonayso in ay Itoobiya ay u fasaxdo isticmaalka mid ka mid ah dekedaheeda una madaxbanaaninayso, iyadoo meesha laga saarayo qaadasho oo ah in ay markaasi arrin ay ku taamayso Addis Ababa. dowladda Itoobiya ayaa marba marka ka dambeysa sii xoojinaysa isku dayga ay ku doonayso in ay ku gaarto biyaha badda cas, waxayna dadaal badan gelisay sidii ay markaasi u dhisi lahayd ciidamo badeed oo ay markaasi leedahay Itoobiya. haddaad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan like saar siina sheergare, taasi waxay naga saacidaysaa in dad badan xogteenna ay gaarto. sidoo kale aragtidaada qaybta hoose ee faallada ah inagu reeb, waa markaasi noo muhiim.